dadka reer Jubbaland in ay tashadaan kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasi ah ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda. Ra'iisul Wasaare Xamse oo ka qoostay tigista Jubbaland Axmed Madoobe oo taageero cusub ka helay mucaaradka beesha Xawaadle oo xujo adag hordhigtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilka qaadista Sambaloolsho fashilantay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqeyn doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku horreynay Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ka qoostay tigista Jubbaland xilli ay u muuqato in uu si weyn ugu sii fashilmayo duulaankii siyaasadeed ee ka dhanka ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si niyad jab ah ka muujinaya tigista Jubbaland iyo inuu si toos ah isku dhiibay, waxaana mar kale soo baxaya warar sheegaya inuu fashilmay qorshe la doonayay in maamul cusub loogu dhiso Jubbaland. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo isagu qorshihiisa ugu weyn uu ahaa kala furidda Axmed Madoobe iyo nidaamkiisa Jubbaland ayaa mar kale seefta gal kala baxay, isagoo sheegay inuu tagi doono gobolka Gedo si halkaas looga dhiso maamulka madax bannaan kan dowladda Jubbaland ee magaalada Kismaayo. waxaa soo baxaysa cabsi iyo cagajugleyn weyn oo la xiriirta in Ra'iisul Wasaare Xamse uusan ku dhicin tagista magaalada Kismaayo, amar guudna uu soo saaray hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland oo isagu si cad u diiday in dowladda federaalka ah wax wada shaqeyn ay dhex marto inta ay joogaan madaxweyne Xasan iyo Ra'iisul Wasaare Xamse, taasoo ku sheegay in ay yihiin kuwa iyaga dhibaatada weyn ku haya amniga iyo nabadda dadka Jubbaland. waxaa hadda fashil iyo quus ku sii dhow rajadii Ra'iisul Wasaare Xamse mar uu ka lahaa tagista Jubbaland iyo in uu gacanta ku soo dhigo maamulka deegaan ahaan uu ka soo jeedo ama uu ku matalo kursiga Villa Soomaaliya. dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo sanadkii ugu dambeeyay ahaa kaligii dul siyaasadeed garabna aan ka haysan mucaarad iyo dowlad goboleedyo ayaa hadda helaya taageero xooggan oo dhanka mucaaradka ah, waxaana Jubbaland ay si toos ah u diidan tahay in dowladda federaalka ah ay qaado tallaabooyin lagu dhisayo maamul ka madax bannaan kan dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan la sheegay in Axmed Madoobe oo weli aan isku caleemo saarin xilka maamulka Jubbaland uu hadda qorsheynayo inuu dhigto xaflad caleemo saar ah si ay uga soo qayb galaan munaasabadaasi xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu Kismaayo tegi doona maalmaha soo aadan sida xogta lagu soo bandhigay. waxaana Axmed Madoobe qorshihiisa ugu weyn uu yahay in dowladda federaalka Soomaaliya uu kula dagaalamo nooc walba oo siyaasadeed iyo qorshe walba oo lagu doonayo in lagu qalqalgeliyo Jubbaland. maalinkii shirka warmutiyeedka laga soo saaray ayaa ugu dambeysay wax ka hadlaya arrinta Jubbaland ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha oo isagoo uga fashilmay qorshe uu ku doonayay in Jubbaland maamul loogu dhiso. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa kulan ka dhacay Mareykanka lagu weydiiyay su'aal ku saabsanayd arrintii Jubbaland ee Xasan Sheekh Maxamuud shacabka u sheegay in uu u xil saaray wasiirka arrimaha gudaha, waxaana uu ku jawaabay in arrintaasi ka hadalkeeda iyo maqalkeedaba ay ugu dambeysay markii la soo saaray war-saxaafadeedkii lagu sheegay in uu ka soo baxay shirkii lagu dhisay xisbiga Xasan Sheekh. tani waxa ay ku tusaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud xitaa uusan la tashanin golihiisa wasiirada, waxaana meesha ka cad cidda duulaanka ku ah Jubbaland uu yahay Xasan Sheekh oo keliya, xitaa qaraabadan oo golihiisa ka mid ah aysan la qabin. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku tuntay dastuurkii dalka ee isaga lagu doortay, waxa uuna ka doorbiday in dalku uu geliyo xaalad hubanti la'aan ah. saamileyda siyaasadeed ee dalka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday inay muhiim tahay Xasan in meel looga soo wada jeesto si loo badbaadiyo mustaqbalka qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed lagu yiri warar daqiiqado kor lagu baahiyay bogga telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. arrintan waxay muujinaysaa in Jubbaland ay si toos ah ugu diyaar garoobayso duulaan iyo loolan kasta oo siyaasadeed doonayo
in uu dagaal siyaasadeed kula galo madaxweyne xasan oo isagu duulaan qaawan ku qaaday sida ay sheegeen maamulka Jubbaland. dhinaca kale beesha xawaadle ayaa xujo adag hordhigtay madaxweyne xasan iyo dowladdiisa xilli dhammaan ay fashilmeen isku dayo lagu doonayay in lagu fashiliyo guntanka dagaal ee beesha xawaadle ay kula jirto kooxda argagixisada shabaab. waxaana beesha xawaadle ay muujisay hogaamin awood karti iyo dagaal dhiiran oo cadowga ay kula jirto, taasoo ah xujo adag oo hortaala beel walba oo Soomaaliyeed oo degta Shabeellada Dhexe ama Hirshabeelle, kuwaasoo guluf military ama dagaal culus kula jira kooxaha argagixisada. lama oga sida xaalku uu noqon doonay waxa ay ku dambayso, hase yeeshee waxay muujiyeen xawaadle isku duubni, midnimo iyo dagaal adag in lagu hortagi karo kooxaha argagixisada. dhinaca kale Sanbalolshe xilki qaadisiisii ayaa fashilantay, waxaana markii ugu horreysay uu ka hadlay sida dowladdu wax u wado iyo dagaalka inay kaliya ku noqdeen beeshiisa xawaadle, taasoo ka dhigan in Sanbalolshe durba uu iftiimiyey qorshaha xilka looga qaadayo. agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo weli ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Shabeellada Dhexe iyo Galguduud ee dalkan Soomaaliya. Sanbalolshe ayaa baaq cod dheer diray, wuxuuna ka codsaday shacabka labadaasi gobol inay gacan siiyaan beesha xawaadle iyo ciidamada xoogga dalka ee dagaalka kula jirta kooxda shabaab. agaasimaha NISA ayaa xusay in loo baahan yahay in loo midoobo al-shabaab, isla markaana la xoojiyo furimaha dagaalka ee haatan ku furan qawaariidta si looga adkaado. dadka Soomaaliyeed ee hayb wadaagta nahay, qaasatan dadka degan Shabeellada Dhexe iyo dadka degan Galmudug, waxaan ka codsanayaa in furimaha dagaalka tagaan ama meesha ay joogaan xabadda ka bilaabaan ama ay noo yimaadaan, ayuu yiri Sanbalolshe. sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray, far kaliya fooli ma dhaqdo, haddaa isku tagno waa jiidi karnaa shabaab intii uu jiidi lahaa kaalayna la jiida, ayuu yiri. Cabdulaahi Sanbalolshe hadalkiisii wata ayaa sidoo kale ka hadlay taageerada dowladda ee ku aadan reer Hiiraan, isagoo sheegay in weli ay ka maqan xuquuq dowladnimo oo ay lahaayeen sida hadalka uu dhigay. dowladnimada Soomaaliya ninka dhibkiisa badsada waa inuu dheeftiisa badsado, laakiin hadda waxaa jirta adiga dhimo dhibka badso, dheefta aniga iska leh, ayuu yiri. Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa ka socda dagaallo qaraar oo ka dhan argagixisada, kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu ciribtiro qawaariidta. dagaalkii ugu khasaaraha badnaa oo maalmo ka hor ka dhacay soodinta labada gobol ayaa waxaa lagu laayay al-shabaabkii ugu badnaa, waxaana muuqaalo laga soo duubay meydadkooda oo daadsan dhulka hawdka ah, dhiigooda oo meel kasta yaala iyo godadkii ay qoteen oo lagu dumiyey. si kastaba dagaalka socda 6dii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa maalinkii koowaad lagu dilay 70 ka tirsan kooxda argagixisada, waxaana hadda gulufka horkacaya taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Sanbalolshe. saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka. tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.